Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Ilaalinta deegaanka. Marka hore waa in la fahmo qiimaha dhirtu deegaanku ay u leedahay iyo dhibaatada ka imaan karta xaalufinta iyo nabaad guurka deegaanka. Adduunyadan aan ku noolnahay waa meel qurux badan. Allana wuxuu wakiil ugu dhigay aadamaha in sidii loogu talagalay ugu dhaqmo. Dhulka waxaa laga helaa buuro, dooxooyin, kaymo, bado, webiyo iyo harooyin qurux badan. Waxaas oo idil waxa ay ka mid yihiin deegaankeena. Sanadyo fara badan waxaan ku guuldareysanay inaan ilaalino deegaankeena sababtoo ah waxa aad arkaysaa in geedihii la jarayo iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay. Dunida waxaa lagu arkaa in meelo kaymo ay ku yaaleen la jaray oo laga dhigay dhul bannaan, ujeedaduna tahay in eber laga dhigo. Meelaha qaar ee dhirta laga jaro waxay noqdaan meelo bannaan oo ay carradu noqoto mid qaawan. Dhirta dhulkaas laga jaray waxaa laga dhigaa dhuxul. Arrintan waxaa caan ku ah dalka Soomaaliya oo aad arkayso dekedaha waaweyn iyo kuwa macmalka ahba baabuur fara badan oo dhuxul sida. Dhuxushaas waxaa loo dhoofiyaa dibadda waxaana laga helaa lacag adag. Sidoo kale waxaa wasakh sumaysan lagu daadiyaa badaha iyo webiyada dalkeena. Soomaaliya waxa ay leedahay xeeb dheer, waxaana la sheegaa in maraakiibta ay wadamadooda ka soo qaadaan wasakhda warshadahooda ay ku daadiyaan xeebaha badda Soomaaliya. Taasna waxa ay uga faa'iideystaan dowlad la'aanta ka jirta waddanka muddo dheer. Tan kale waxay ku tusaysaa in dadka aynan lahayn waddanka oo ay ka dhoofayaan ama ka guurayaan waqtiga ay rabaan. Dadka ma ilowsan yihiin marka ay geeduhu gurayaan inay baabi'inayaan deegaanka xayawaankooda uu ku nool yahay, waxna ku dhala kuna dhaqma. Dadka ma ilowsan yihiin haddii dhirta la dhammeeyo aysan heli doonin wax ay shitaan iyo meel ay harsadaan. Dadku ma ilowsan yihiin in dhirtu u tahay iyaga iyo duurjoogtaba gabaad nolosha ku habboon. Dadku ma ilowsan yihiin haddii dhirta la jaro xoolaha la dhaqdo iyo kuwa kaleba in ay qaxayaan. Dadku ma ilowsan yihiin in dhirtu tahay indhaha nuurkooda. Hadda waa waqtigii aan ku baraarugi lahayn in aan badbaadino deegaankeena si aan u daba qabanno waxa haray. Wadamada qaar waxaa laga helaa dad xanaaneeya dhirta kana badbaadiya wixii cadow ku ah. Waxay abuuraan dhir ay ku kordhiyaan deegaanka. Haddii ay jirto kuwa la jaray, waxay ka hortagaan carro guurka. Wadamo fara badan ayaa ka mamnuuc ah in la jaro dhirta. Qofkii lagu arko asaga oo amar la'aan jaraya dhirta waxaa la isugu daraa xarig iyo ganaax. Dadka qaarkiis waxay hadiyado qaali ah ku helaan ilaalinta deegaanka. Waxaa had iyo jeer fiican in dadka noocaas ah la dhiirrigeliyo si cadowga dhirta jaraya looga celiyo. Waxaan u maleynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iido. Sii faafi kana mid noqo bahda CCM Official. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.